cadsan tahay waxa la yidhi dhalaan dhunkasha waxba uma tarto dhiishiisa caano loogu shubaa waxaan oga jeedaa madaxweynaha Kenya bacdama ay doorasho ku soo aadan tahay wuxuu isugu yeedhay safiiradii dalkiisa joogay oo ka Soomaaliya iyo kan Somaliland ba kamid yihiin okay safiirkii Soomaaliya wuxuu yidhi wali dunida aqoonsi kama helin Somaliland annagu qarannimadii Soomaaliya aanu ilaalinaynaaye xafladda waxa laga bedelo taasi waxay keentay in Kenya ka siisan weyday uu banaanka u baxay Maxamed Nuur Tarsan oo ahaa safiirkii Soomaaliya inta ay Kenya sawiraysay inta aan baydo horta baxdalaad bay ahay labada dhinac ay u geysanaysay waxaana istiri Somaliland iyo Soomaaliya bacdama dawladan cusub ee haatan dhalatay ay tiri wada hadalkii baanu dib u bilaabaynaa calool xumo hor leynay sii beerto ayay horta doonaysa Kenya hasan noqotee waxay noogsoonay Kenya in halkan ka dhisanayso qusuliyad ama safiirba ka doonaba ugu yeed safaaradaasi waa mid ay ku karbaashaysay ninkii loo oran jiray Farmaajo mar alla markay xaaladdu degtana way ka joojisaa dhismaha mar alla markay xaaladda Soomaaliya ay ka shakidayna iyada waxba godan ahayna rinjigay kula dhaqsataa adeer hadaanad Kenya ay safaaradda ka shaqaysiinayna oo calankaaga intaad ka taagto oranaynin Somaliland waana qoonsaday iskaga baxo iska tag ma fahamtay dhaqaalihii ka galayna annaga ku celinayna Soomaaliya ay noqotay Soomaaliya inaad 30 iyo saa'id sanadood qasnaato oo degi weydo annagana nafisixi weydo halka sharciga laga dheelo dabal adduunyada hal soo wareysto midda kale anu midnimo Soomaaliyeed xiiso uma qabo laakiin Soomaaliya inay dhisanto oo Somaliland iyadoo la jinay sar fadhiistaan xaaladooda kala gurtaan taasaan jecelahay waxaan adogsoonataa ninkii la yaaban Somaliland hadday tirada sidaasaan ku sii joogayaayo waxaad ogsoonataa Senegal Faransiis baa gumaysan jiray waanta waa laba dalo Gambia ka gooday Ethiopia hal dal bay haydo waxa ka gooday Eritrea Sudan hal dal bay haydo maanta waa laba dalo South Sudan baa ka gooday Indonesia hal dal bay haydo maanta waa laba dalo East Timor baa ka gooday maceeba hadii labadii dal ee awalba Ingiriis iyo Talyaani kala gumaysan jireen ee dariska ahaan jiray la ahaado xumaan raadisun bay dunidu tahay oo Soomaali inay baabi'iso bay uga jeedaaye mid kale anigu waxaan la yaabanahay madaxweynaha Soomaaliya imika yimid hadda ogsoonaada waa ninkii maydka Kenyaatiga u sujuudi jiray isaga lagu xumeynayay marka labaad waxa ogtiin safiirka maanta Kenya u jooga Soomaaliya Maxamed Nuur Tarsan waa gudoomiyay hore ee gobolka Banaadir ee Farmaajo haddana isaga safiirka Kenya u magacawday ninka lagu dhangadaynayaa lagu sii daba socdaa horta waa Farmaajo ee la doonaya marka Tarsan inuu meesha laga saaro taasina waa wax suurtagal ah waxaan jecelahay mar hadii saaka Kenya durba ay raali galin bixisay sidii gabadh qaldantay oo ninkeedii ku qaldantay Somaliland inaanay Kenya waxba la sii wadwadin halkaas anigu ku joojin lahaa hasan noqotay markaan uu godogalo xisbiyada Somaliland maanta jooga waxa la yiraahdaa hadaan qolofta adiga ku saarani aanay gumooy iyo gabamooy aqli ku taraynin anigu waan la yaabay wareede madaxweynaha Somaliland waa ki ceeri gaaba tagay wuxuu yiri anu muddo kororsi ma samaynayo laakiin waxaan doonayaa doorashada urur siyaasadeedka hala qabto oo kaalay adu madaxweynaha igiyo nimaan runku sheegin runku ma ooye daaday taadu horeysa sharciyan iyaguna 29 cisho meelahaas ka dambeeyano bisha 12aad iyo iyagana lagu qabanaya waxaad waliba raacisay anigu kuwa soo bixi doona ayaan la tartami doona sharciga maada ballan qaaday bilood baabaad saaxadda ka baxda oo xisbigaaguba baabaa ya anigu waxyaabaha aan la yaabo marka labaad inaanay saddexda xisbi qaran ee Somaliland midkoodna rajo lahayn waxay tusaale igu filan maalintii dhaweeyda banaanbaxa ay xisbiga wadani soo abaabuleen daawud baa kula jiray mar alla markii halka la soo gaaray badroolaha ina galan ayay u cid meel ka wareegtay Faysal Cali Waraabe markii horena banaanbax baanu qabanaynaa buu lahaa markii dambana ee wixiiba dhamaadeen wax dhaawacmiyo wax la kala yaacay la sameeyayna uu soo joogsado Faysal wuxuu yiri anigu banaanbax baanu sameeynaa anu dhalinyarada Somaliland baanu sheegaya dadkan cirada leh ee gaboobay wax dhintay wax noolba waxaan ku yiri way sii socdaan wadanka idinka leh horta iska duminina ilaashada mid kale anu xisbiga mucaaradka waxaan ku dhaliilaya waxa weeyaan banaanbax qabaad u leedahay dastuurka iyo nidaamka Somaliland ba ku siinaya laakiin macnaheedu ma hayna suuqiyo soo dhax jiidho imika meel halkaas oo loogu tala galay warbaahinta iyo shacabku inay ku kulmaan shaahooda ku cabaan oo lagu nafaxaado marka timid waxba uma tarin meeshiba ciidan baa la dhigay
cid koob shaaha ku cabisa male bannaan geli cidloo saa loo taagan yahay noqota bal hadda maskaxdiina dib u fiiriyo u eega dawladda Soomaaliland xisbiga kulmiye ka soo jeeda haddaad leedihiin kulmiya bannaan bixi jiray waa lagu dhinto waa lagu dhaawacmay maraadkaas idin kaga dayan maraadkaasi ayay idin kaga dayan weydogayna waxa rag maanta xagga wadani u jabay halkan ay ahaan jireen nin waliba kaagu halku ugu jira markuu waayo uu dhinac kale u boodaya markaan waxaan idin dhan lahaa dalka hay naga duminina midda kale Soomaaliland sidaa isu haystate riwaayad daawada Soomaaliyana idin ma fasaxayso oo iyadii baaba teedi khaatiyaan u taagan idinkuna sharciga dunida kaga aqoonsi kaga raadsataan ma haysataan oo 24 saac waa haysataan war jiraaba cakaaru imane tababarii hore kooxda Tottenham dad baaba igu qabsada ciyaara waa Pochettino imika kooxda PSG ee dalka Faransiiska tababaraha ka PSG waxay tiri anagu Champions League baan u baahnay Tottenham xitaa waa kii finalka keenay annaga finalkina wuu nagula guuleysan waaye sanadkan gudihiisa ha iska tago oo maxaa dhacay ana wax idin sheegay reer PSG haddii meeshiin wada laacib noqotay ilaa waa la kala soocayo dadka ciyaartoyga wayna qaarna laacibiin noqdaan qaarna soo xereeyaal iyo soo dhaweeyaal noqdaan laakiin markay meeshii wada laacibiin noqoteen Neymar joogo maxaan ku Lionel Messi joogo xagaad ku socotaan inaad martay raggan kala dareerisan oo koox yar yar oo sida Arsenal oo kale orod dhaadheer daad keentaan tababarana malaha waxa idin ku fiican ninkii loo oran jiray ciyaartoygii weena reference Zinedine Zidane hadsan tahay waxa la yiri dhalaan dhunkasha waxba uma tarto dhiishiisa caano loogu shubaa waxaan uga jeedaa madaxweynaha Kenya bacdama ay doorasho ku soo aadan tahay wuxuu isugu yeeray safiiradii dalkiisa joogay oo ka Soomaaliya iyo kan Somaliland ba kamid yihiin okay safiirkii Soomaaliya wuxuu yiri wali dunida aqoonsi kama heli Somaliland annagu qarannimadii Soomaaliya aanu ilaalinaynaaye xafladda waxa laga bedelo taasi waxay keentay in Kenya ka siisan weyday uu banaanka u baxay Maxamed Nuur Tarsan oo ahaa safiirkii Soomaaliya inta ay Kenya sawiraysay inta aan baydo horta baxdalaad bay ahay labada dhinac ay u geysanaysay waxaana istiri Somaliland iyo Soomaaliya bacdama dawladan cusub ee haatan dhalatay ay tiri wada hadalkii baanu dib u bilaabaynaa calool xumo hor la inay sii beerto ayay horta doonaysay Kenya hasan noqotee waxay noogsoonaysaa Kenya in halkan ka dhisanayso qasuuliyad ama safiirba ka doonaba ugu yeed safaaradaasi waa mid ay ku karbaashaysay ninkii loo oran jiray Farmaajo mar alla markay xaaladdu degtana way ka joojisaa dhismaha mar alla markay xaaladda Soomaaliya ay ka shakiday inaan iyada waxba godan ahayna rinjigay kula dhaqsataa adeer hadaanad Kenya ay safaaradda ka shaqaysiinayeen oo calankaaga inta ka taagto oranaynin Somaliland waana qoonsaday iskaga baxo iska tag ma fahamtay dhaqaalihii ka galayna annaga ku celinayna Soomaaliya ay noqotay Soomaaliya inaad 30 iyo saa'id sanadood qasnaato oo degi weydo annagana nafsixi weydo halka sharciga laga dheelo dabal adduunyada hala soo wareysto midda kale anu midnimo Soomaaliyeed xiiso uma qabo laakiin Soomaaliya inay dhisanto oo Somaliland iyadoo la jinay sar fadhiistaan xaaladooda kala gurtaan taasaan jecelahay waxaan adogsoonataa ninkii la yaaban Somaliland hadday tirada sidaasaan ku sii joogayaayo waxaad ogsoonataa Senegal Faransiis baa gumaysan jiray waanta waa laba dalo Gambia ka gooday Ethiopia hal dal bay ahayd oo waxa ka gooday Eritrea Sudan hal dal bay ahayd oo maanta waa laba dalo South Sudan ba ka gooday Indonesia hal dal bay ahayd oo maanta waa laba dalo East Timor ba ka gooday maceeba hadii labadii dal awalba Ingiriis iyo Talyaani kala gumaysan jireen ee dariska ahaan jiray la ahaado xumaan raadisun bay dunidu tahay oo Soomaali inay baabi'iso bay uga jeedaaye mid kale anigu waxaan la yaabanahay madaxweynaha Soomaaliya imika yimid hadda ogsoonaada waa ninkii maydka Kenyaatiga u sujuudi jiray isaga lagu xumeynayay marka labaad waxaad ogtiin safiirka maanta Kenya u jooga Soomaaliya Maxamed Nuur Tarsan waa gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ee Farmaajo haddana isaga safiirka Kenya u magacawday ninka lagu dhangadaynayo lagu sii daba socdaa horta waa Farmaajo ee la doonaya marka Tarsan inuu meesha laga saaro taasina waa wax suurtagal ah waxaan jecelahay
mar haddii saaka Kenya durba ay raali galin bixisay sidii gabadh qaldantay oo ninkeedii ku qaldantay Somaliland inaanay Kenya waxba la sii wadwadin halkaasan anigu ku joojin lahaa hasan noqotay markaan uu godogalo xisbiyada Somaliland maanta jooga waxa la yiraahdaa hadaan qolofta adiga ku saarani aanay gumooy iyo gabamooy aqli ku taraynin anigu waan la yaabay wareede madaxweynaha Somaliland waa ki ceeri gaaba tagay wuxuu yiri anu muddo kororsi ma samaynayo laakiin waxaan doonayaa doorashada urur siyaasadeedka hala qabto oo kaalay adu madaxweynaha nimaan run ku sheegin run kuma ooyee daaday taadu horeysa sharciyan iyaguna 29 cisho meelahaas ka dambeeyano bisha 12aad iyo iyagana lagu qabanaya waxaad waliba raacisay anigu kuwa soo bixi doona ayaan la tartami doona sharciga maada ballan qaaday bilood baabaad saaxada ka baxda oo xisbigaaguba baabaa ya anigu waxyaabaha aan la yaabo marka labaad inaanay saddexda xisbi qaran ee Somaliland midkoodna rajo lahayn waxay tusaale igu filan maalintii dhaweeyda banaanbaxa ay xisbiga wadani soo abaabuleen daawud baa kula jiray mar alla markii halka la soo gaaray badroolaha ina galan ayay u cid meel ka wareegtay Faysal Cali Waraabe markii horena banaanbax baanu qabanaynaa buu lahaa markii dambana ee wixiiba dhamaadeen wax dhaawacmiyo wax la kala yaacay la sameeyayna uu soo joogsado Faysal wuxuu yiri anigu banaanbax baanu sameeynaa anu dhalinyarada Somaliland baanu sheegaya dadkan cirada leh ee gaboobay wax dhintay wax noolba waxaan ku yiri way sii socdaan wadanka idinka leh horta iska duminina ilaashada mid kale aanu xisbiga mucaaradka waxaan ku dhaliilaya waxa weeyaan banaanbax xaqbaad u leedahay dastuurka iyo nidaamka Somaliland ba ku siinaya laakiin macnaheedu ma hayna suuqiyo soo dhex jiidho imika meel halkaas oo loogu tala galay warbaahinta iyo shacabku inay ku kulmaan shaahooda ku cabaan oo lagu nafaxaado marka timid waxba uma tarin meeshiba ciidan baa la dhigay cid koob shaaha ku cabisa male banaan gali cid loo saal loo taagan yahay noqotay bal hadda maskaxdiina dib u fiiriyo oo eega dawladda Somaliland xisbiga kulmiye ka soo jeeda haddaad ileedihiin kulmiya banaan bixi jiray waa lagu dhinto waa lagu dhaawacmay maraadkaas ay idin kaga dayan maraadkaasi ayay idin kaga dayan weyd ogeyda waxa la waxa rag maanta xagga wadani u jabay halkani ka ahaan jireen nin waliba ka halku ugu jira markuu waayo uu dhinac kale u boodaya markaan waxaan idin dhan lahaa dalka hay naga duminina mid kale Somaliland sidaa isu haystate riwaayad daawada Soomaaliyana idin ma fasaxayso oo iyadii baaba teed khatiyaan u taagan idinkuna sharciga dunida kaga aqoonsi kaga raadsataan ma haysataan oo 24 saac waa haysataan war jiraaba akaaru imane tababari hore kooxda Tottenham dad baaba igu qabsada ciyaara waa Pochettino ee imika kooxda PSG ee dalka Faransiiska tababaraha ka PSG waxay tiri anagu Champions League baan u baahnay Tottenham xitaa waa kii finalka keenay annaga finalkina uu nagula guuleysan waayay sanadkan gudihiisa ha iska tago oo maxaa dhacay ana wax idin sheegay reer PSG haddii meeshiin wada laacib noqotay ilaa waa la kala soocayo dadka ciyaartoyga wayna qaarna laacibiin noqdaan qaarna soo xereeyaal iyo soo dhaweeyaal noqdaan laakiin markii meeshii wada laacibiin noqoteen Neymar joogo maxaan ku Lionel Messi joogo xagaad ku socotaan inaad maartay raggan kala dareerisan oo koox yar oo sida Arsenal oo kale orod dhaadheer daad keentaan tababarana malaha waxa idin ku fiican ninkii loo oran jiray ciyaartoygii weena reference Zinedine Zidane hadsan tahay waxa la yiri dhalaan dhunkasha waxba uma tarto dhiishiisa caano loogu shubaa waxaan oga jeedaa madaxweynaha Kenya bacdama ay doorasho ku soo aadan tahay wuxuu isugu yeeray safiiradii dalkiisa joogay oo ka Soomaaliya iyo kan Somaliland ba kamid yihiin okay safiirkii Soomaaliya wuxuu yiri wali dunida aqoonsi kama heli Somaliland annagu qarannimadii Soomaaliya aanu ilaalinaynaaye xafladda waxa laga bedelo taasi waxay keentay in Kenya ka siisan weyday uu banaanka u baxay Maxamed Nuur Tarsan oo ahaa safiirkii Soomaaliya inta ay Kenya sawiraysay inta aan baydo horta baxdalaad bay ahay labada dhinac ay u geysanaysay waxaana istiri Somaliland iyo Soomaaliya bacdama dawladan cusub ah haatan dhalatay ay tiri wada hadalkii baanu dib u bilaabaynaa calool xumo hor leynay sii beerto ayay horta doonaysay Kenya hasan noqotee waxay noogsoonay Kenya in halkan ka dhisanayso qusuliyad ama safiirba ka doonaba ugu yeed safaaradaasi waa mid ay ku karbaashaysay ninkii loo oran jiray Farmaajo mar alla markay xaaladdu degtana
way ka joojisaa dhismaha mar alla markay xaaladda Soomaaliya ay ka shakidayna iyada waxba godan ahayna rinjigay kula dhaqsataa adeer haddaanad Kenya ay safaaradda ka shaqaysiinayna oo calankaaga intaad ka taagto oranaynin Somaliland waana qoonsaday iskaga baxo iska tag ma fahamtay dhaqaalihii ka galayna annaga ku celinayna Soomaaliya ay noqotay Soomaaliya inaad 30 iyo saa'id sanadood qasnaato oo degi weydo annagana nafisixi weydo halka sharciga laga dheelo dabal adduunyada hal la soo wareysto midda kale anu midnimo Soomaaliyeed xiiso uma qabo laakiin Soomaaliya inay dhisanto oo Somaliland iyadoo la jinay sar fadhiistaan xaaladooda kala gurtaan taasaan jecelahay waxaan adogsoonataa ninkii la yaaban Somaliland hadday tiraado sidaasaan ku sii joogayaayo waxaad ogsoonataa Senegal Faransiis baa gumaysan jiray waanta waa laba dalo Gambia ka gooday Ethiopia hal dal bay haydo waxa ka gooday Eritrea Sudan hal dal bay haydo maanta waa laba dalo South Sudan baa ka gooday Indonesia hal dal bay haydo maanta waa laba dalo East Timor baa ka gooday maceeba hadii labadii dal ee awalba Ingiriis iyo Talyaani kala gumaysan jireen ee dariska ahaan jiray la ahaado xumaan raadisun bay dunidu tahay oo Soomaali inay baabi'iso bay uga jeedaaye mid kale anigu waxaan la yaabanahay madaxweynaha Soomaaliya imika yimid hadda ogsoonaada waa ninkii maydka Kenyaatiga u sujuudi jiray isaga lagu xumeynayay marka labaad waxaad ogtiin safiirka maanta Kenya u jooga Soomaaliya Maxamed Nuur Tarsan waa gudoomiyay hore ee gobolka Banaadir ee Farmaajo haddana isaga safiirka Kenya u magacawday ninka lagu dhangadaynayaa lagu sii daba socdaa horta waa Farmaajo ee la doonaya marka Tarsan inuu meesha laga saaro taasina waa wax suurtagal ah waxaan jecelahay mar haddii saaka Kenya durba ay raali galin bixisay sidii gabadh qaldantay oo ninkeedii ku qaldantay Somaliland inaanay Kenya waxba la sii wadwadin halkaas anigu ku joojin lahaa hasan noqotay markaan uu godogalo xisbiyada Somaliland maanta jooga waxa la yiraahdaa hadaan qolofta adiga ku saarani aanay gumooy iyo gabamooy aqli ku taraynin anigu waan la yaabay wareede madaxweynaha Somaliland waa ki ceeri gaaba tagay wuxuu yiri anu muddo kororsi ma samaynayo laakiin waxaan doonayaa doorashada urur siyaasadeedka hala qabto oo kaalay adu madaxweynaha igiyow nimaan run ku sheegin run kuma ooyee daaday taadu horeysa sharciyan iyaguna 29 cisho meelahaas ka dambeeyano bisha 12aad iyo iyagana lagu qabanaya waxaad waliba raacisay anigu kuwa soo bixi doona ayaan la tartami doona sharciga maada ballan qaaday bilood baabaaday saaxadda ka baxda oo xisbigaagu baabaa ya anigu waxyaabaha aan la yaabo marka labaad inaanay saddexda xisbi qaran ee Somaliland midkoodna rajo lahayn waxay tusaale igu filan maalintii dhaweeyda banaanbaxa ay xisbiga wadani soo abaabuleen daawud baa kula jiray mar alla markii halka la soo gaaray badroolaha ina galan ayay cid meel ka wareegtay Faysal Cali Waraab markii horena banaanbax baan qabanaynaa buu lahaa markii dambana ee wixiiba dhamaadeen wax dhaawacmiyo wax la kala yaacay la sameeyayna uu soo joogsado Faysal wuxuu yiri anigu banaanbax baan sameeynaa anu dhalinyarada Somaliland baan u sheegaya dadkan cirada leh ee gaboobay wax dhintay wax noolba waxaan ku yiri way sii socdaan wadanka idinka leh horta iska duminina ilaashada mid kale anu xisbiga mucaaradka waxaan ku dhaliilayaa waxa weeyaan banaanbax qabaad u leedahay dastuurka iyo nidaamka Somaliland ba ku siinaya laakiin macnaheedu ma hayna suuqiyo soo dhax jiidho imika meel halkaas oo loogu tala galay warbaahinta iyo shacabku inay ku kulmaan shaahooda ku cabaan oo lagu nafaxaado marka timid waxba uma tarin meeshaba ciidan baa la dhigay cid koob shaaha ku cabisa male banaan gali cid loo saal loo taagan yahay noqoto bal hadda maskaxdiina dib u fiiriyo oo eega dawladda Somaliland xisbiga kulmiye ka soo jeeda haddaad leedihiin kulmiya banaanbixi jiray waa lagu dhinto waa lagu dhaawacmay maraadkaas ay idin kaga dayan maraadkaasi ayay idin kaga dayan weydogayna waxa rag maanta xagga wadani u jabay halkan ay ahaan jireen nin waliba ka halku ugu jira markuu waayo uu dhinac kale u boodaya markaan waxaan idin dhan lahaa dalka hay naga duminina mid kale Somaliland ay sidaa isu haystate riwaayad daawada Soomaaliyana idin ma fasaxayso oo iyadii baaba teedi khatiyaan u taagan idinkuna sharciga dunida kaga aqoonsi kaga raadsataan ma haysataan oo 24 saac waa haysataan war jiraaba akaaru imane tababari hore kooxda Tottenham dad baaba igu qabsada ciyaara waa Pochettino ee imika kooxda PSG ee dalka Faransiiska tababaraha ka PSG waxay tiri anagu Champions League baan u baahnay
Tottenham xitaa waa kii finalka keenay annaga finalkiina wuu nagula guulaysan waayey sanadkan gudihiisa ha iska tago oo maxaa dhacay anaa wax idin sheegaya reer BSTO haddii meeshiinni wada laacib noqotay ilaa waa la kala soocayo dadka ciyaartoyga wayna qaarna laacibiin noqdaan qaarna soo xereeyaal iyo soo dhaweeyayaal noqdaan laakiin markay meeshii wada laacibiin noqoteen Neymar joogo maxaan ku Lionel Messi joogo xagaad ku socotaan waa inaad maartay raggan kala dareerisaan oo koox yar yar oo sida Arsenal oo kale orod dhaadheer daad keentaan tababarana malaha waxa idinku fiican ninkii loo oran jiray ciyaartoygii weynaa reference Zinedine Zidane